xafladda iyo ragga qalqaaliyeen iyo dadka ka soo qayb gareen ilaahay waxaan ugu baryaynaa dhammaan in ilaahay tawfiiq badan siiyaan ilaahay ugu baryaynaa ilaahay tawfiiq badan ha siiya khayraadka la samaynayana ahalkeeda allaha ku anfaca intaas kadib ayaa alikhwa waxba hadda inaan sheega ma doonaya laakiin dhowr kelimo oo sheekh cabdiraxmaan uu ka hadlay أخونا عبد الرحمن كلمات وكهضلي شاعر يان واقع نمذيذا إذن يرتسين روان لكن انت نكهضلين وحسو بندقي ما يسلا كلماتكم ما يكميته وحسو بندقي شيخ عبد الرحمن ضد والداه معلن كتابي ما ضاش فقر waxaa yidhaha usbuuca sabtiga khamiistii jimcaha ka gooy maalinkaa jirineed ka gooy sidaa kula xisaabtameen cali bin abi daalib waxaa laga wariyaa laba bayd oo shicr oo ah inuu leeyahay ra'aytu axaqa alxaqi xaqa almucallimi wa awjabahu xifdan calaa kulli muslimi لقد حق أن يهدى إليه كرامة بتعليم حرف واحد 1000 درهم حق أوردن وحانو أركابه ليهاي وحا صرية إنو يهي حق معلمك وحاسنا وإن لحفظيو لإلالي أغو مهم سن أغو مناسب سن وحاسنا متهال حرف عدوك برا كن درهم إن لسيه كن درهم دواغا لعاقا يهد dadka waalidaha oo ilmaha keensada wax loo bara waa 3 nooc qaar macalinka wixii lagu heshiina waa siiyaan waana karaamayaan ay soo dhaweeyaan wixii ugu dari karaan ay ugu daraan shaki kuma jiro dadka ayaga ilmahooda inay noqonayeen dad khayr badan oo muqaddimo oo natiijo leh oo barakaysan diintooda oo meel gaaraysa ay noqonayeen qaarna xuquuqda ay iska bixiyaan walow ay macalinka juhuud kale u samaynin laakiin xuquuqda ay iska bixiyaan lagu leeyahay ayagana ilmahooda hadday diin weyn baraninna wax raacaya ma lihin oo dhibaato ah laakiin insha allahu inay waxun khayr gaaraan ay muslimiinta ka mid noqdaan la rajayn qaarna macalimka waxayba ku dhibaan wix yaraa lagu heshiiyayba ku dhibaan baraka ma malaynaysaan cunugaas in laga helo rajaha ka qabina taas habeenka xalay la tagay way marka qofkii isma oga asaga cunugiisa baabiina cunugiina wax bartana waa rabaa maxaa la yiraahdaa cunugiisa buu faa'iido u rabaa oo in wax loo bara marka waxyaabahan maadiga nooc loogu xisaabtamo umbu bartay diin ilaahay isay ku imaaday isay lagu bartay maxay xushmo mudan tahay ma garanayaba ka intaasaan ugu tagayaa marka waa kalimadii Sheekh Cabdiraxmaan uu ka hadlayo ahayd macallinkii sida loola xisaabtamo arinta kale oo Sheekh Cabdiraxmaan hadaytu ka hadlay oo ahayd masaajidkan ayaan imaadniyo wax jasiirada aqriya la wayay diinta waaba la bartay markii wax jasiirada aqriya la wayay uu leeyahay Sheekh Cabdiraxmaan mar la bartay way diinta oo dad badan ay quraan imaadeen waxaan joogay 76 aakhirkeedii 1976 ayadoo nin sheekh oo Sheekh Maxamed Carab la dhihi jiray carabiyadana akhrinay ونو أخرنا يحوجا أحكام التجويد أيا نمن أوديال له ولادة والربادية يمادين وحا عجيبة أنا مركز والد كان واسل جوجنا حوجا دين عسكو يا ربنا ركسن مركا كتاب كان ولا أخرنا إنه البرهان في علم التجويد أيا الشيخ ضدكو أخرنا معلمين تمركي قرآن كي لا صحاي أو حوجها تجويد كلا أغرنا يا أركين وحيرين دورك كيم هذه بلدين تلا يصير لو عيار كالي أرك شاف دراما ضد جزيرة أغرية اللي هي ولا أغرية بولي هاي لكن وحي بيهد مركز دين تلا يبقى لو عيار بالكالي أرك وأنا حسوستا والد كل ضد علماء هو حرمين كي جوج جري شيخ هي أطلع جوج جري مركب وحو أغرية لبده بيدو هدا وها الأخذ بالتجويد حتم لازم مركا waxaad aqrinayseen ma aqaan culimada maadama qiraa'ada sidaas
annaga sidaan u baranay waxay ahayd man lam yujawid alqur'aana aathimu marka man lam yusaxix alqur'aanada show ma haddaa la bedelay mise way jirta ilaan qofka kitaabkiisiina sidiisi loo daaya ku fiican soo sidaa maaha mise nusakhaa badan calaa ayti xaal marka ma iloobin kelimadii labadii bayd buu aqriyey laakiin macallimiinta waxa la fahamsiin kara ma ayneen oo de qofka meeshuu joogaad garan waxaad aan xasuustay xaaladda iyada ah masjidka asaga laftiisa annagoo joogna nin baadiya ka imaaday oo masjidka soo galay oo duhuraa la dukadaa maqlay masjidka markii masjid soo galay dadka maran baa jamaaca la dukan doonaa buu islaahay ileen wax sunnaysanaa weligiis ma arki marka masjidkuu soo galay dad dukanay buu sugahayey ninkii soo galaba 2 ragcuu dukadaa marka asagana jamaaca la dukanay buu sugahayey marka salaadin ilay jamaacada salaadii waxbaa wax yaraa ka yar dhiman waa istaagay marka masjidku istaagay wuxuu yidhi war adinka maxaa tihiin buu yidhi ninka masjidka soo galaba waatan uu intuu dukaday iska fadhiisanayay soo jamaaco ma jirta meesha lagu dukanayo annaga masjidka jamaaca nu imaadnay ninka inteed jooga baad u malayn macnaha 2 ragco meesha lagu dukanayo dadkaba diinta aad baa looga fogaaday ma arkaysaan waxaad u baahantihiin ilaahay kitaabkiisa inaad macaanidiisa barataan alfaadiisa baad barateen macaanidiisa inaad barataan oo luqada carabiga macnaha sida ay u tusinaysa aad fahamtaan oo sunnada nabiga oo qur-aanka caddaysin wa anzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim arrintaas ayaan idinka codsanaynaa khayr badan allah idin siiya culammadeenna allah barakeeye baaraka allahu fiikum جزاه الله خيرا شيخ خير الله سي ونصيحة غالية ذهبية مركا اللهنا لغا أنفعه نصيحة ذاسي وقت صلاة أيال جوغا علماء دمان كما جارنو بيشنا وحاج جوغو الدكتور شيخ داود شيخ محمد الشيخ الفاضل عبد الله أبو بكر الشيخ المقري عبد القادر وحاكلو جوغا المقري الشيخ محمد عبد الرحمن جديدي إيو شيخ عبد الله نبدون إي علماء كلا وأهل الكرم إي وحاكلو أو جوغا قبدو وأيغانا